conversation wada hadal ama wada sheekeysi lesson 30 cashirka soddonaad lesson 30 cashirka soddonaad ayuu noqonayaa looking for raadin la raadinayo looking for raadin la raadinayo job opportunities looking for raadin la raadinayo job opportunities fursad shaqo job opportunities waxay noqonaysaa fursad shaqo qofka uu raadinayo halkan wuxuu leeyahay good morning subax wanaagsan good morning subax wanaagsan you are adigu looking at waxaad fiirinaysaa you are adigu looking at waxaad fiirinaysaa your sides dhinacyaha ayaad fiirinaysaa your sides dhinacyaha ayaad fiirinaysaa is there ma waxaa jiro is there ma waxaa jiro any problem is there ma waxaa jiro any problem wax dhibaato ah wax dhib ah miyaa jiro okay b wuxuu leeyahay good morning subax lamid ah good morning subax lamid ah I am anigu looking for waxaan raadinayaa job opportunities I am looking for waxaan raadinayaa job opportunities fursad shaqo ayaan raadinayaa I am looking for job opportunities fursad shaqo ayaan raadinayaa okay wuxuu leeyahay su-aal ayuu weydiiyey what do you know maxaa taqaanaa what do you know maxaa taqaanaa what do you know maxaa taqaanaa su-aal ayuu weydiiyey wuxuu leeyahay what do you know maxaa taqaanaa okay b wuxuu leeyahay I anigu finished waan dhameeyey high school dugsi sare I finished waan dhameeyey high school dugsi sare ayaan dhameeyey dugsiga yani secondaryga ayaan ka baxay secondaryga so high school wuxuu noqonayaa dugsi sare secondary I finished waan dhameeyey high school dugsi sare last year sanadka ugu dambeeyey ama sanadka la soo dhaafay ama sanadkii tegay oo kaleeto ay sanadkan soo dhaafnay aan soo mudnay so I finished waan dhameeyey high school dugsi sare last year sanadkii ugu dambeeyey and I can do waxaan samayn karaa anything wax walbo and I can do waxaan samayn karaa anything wax walba ayaan samayn karaa okay su-aal la weydiiyey waxaan leeyahay can you be a translator can you be a translator turjumaan ma noqon kartaa yani mid oo luuqad fasirayo kaleeto laga yaabo meel ayaa turjumaan lagaga baahan yahay bulsho Soomaali ah ku nool qof waxa ku dhex jira English bas le ku hadlaya qofkaas hal raac in dadka looga turjumo so maxaa la marka can you be a translator turjumaan ma noqon kartaa translator wuxuu noqonayaa turjumaan ayuu noqonayaa markaasuu ku jawaabay b yes ha I can be waa noqon karaa yes ha I can be waa noqon karaa because maxaa yeelay translation fasirita wax la fasirayo ama turjumaannimadu is my hobby waaba hobbigayga is my hobby waa wax ani aan ka helo mar walba aan sameeyo hobbigaada wuxuu noqonayaa wax adi aad jeceshahay markasta inaad sameysid so wuxuu dhahay yes ha I can be waa noqon karaa because maxaa yeelay translation turjumaannimadu is my hobby waa hobbigayga ayay tahay wax mar walba aan sameeyo okay waxaan lahay okay waayahay come to email this office xafiiskan come to this office xafiiskani email tomorrow morning beri subaxi come to this office tomorrow morning xafiiskan email beri subaxi yani meeshan email waa lagu shaqaaleyni halkaana ka shaqeynaysaa laga yaabaa in turjumaannimada looga baahan yahay isla xafiiskan in looga baahan yahay laga yaabaa so maxaan leeyahay halkan email markaasuu dhahay okay waayahay thank you so much aad ayaa u mahadsan tahay thank you so much aad ayaa u mahadsan tahay ayuu leeyahay